Maanta waxaynu sharaxaynaa cabitaanada Forever Living Product. Afartan cabitaan ee Forever Living Product runtii waa kuwo ka kooban aloe vera gel oo si gaar ah loogu habeeyey inay taageeraan caafimaadkeena guud ee jirka. Mid kasta run ahaantii wuxuu leeyahay dhadhan iyo faa'iidooyin gaar ah, balse saldhigooda ugu weyn waxaa ku tilmaami karnaa waa aloe vera barbadensis miller oo dacarta nooceeda barbadensis loo yaqaano, oo ah nooca ugu tayada sareysa oo kambaniga isticmaalo. Geedka aloe vera ee Forever-na ay caan ku tahay. Haddaba aynu kala qaadno. Haddii aynu ugu horeysiino kan caanka ah aynu dhowr jeer hore soo sharaxnay, aloe vera gel oo jaalaha ah. Forever aloe vera gel cabitaankan waa cabitaan saafi ah oo ka kooban kaliya dacar. Waxaa laga helaa 99.7 gel nadiif ah, iyadoo laga fogeeyey wax kiimikooyin ah oo aanan wax kiimika lagu darin. Faa'iidooyinka uu leeyahay waa ka dheregsanahay. Waxa uu hagaajiyaa dheefshiidka, wuxuu yareeyaa xanuunka mindhicirada iyo caloosha, wuxuu kor u qaadaa nidaamka difaaca jirka, oo wuxuu ka hortagaa cudurrada. Dhanka kale wuxuu aad u caawiyaa jirka in uu qaato nafaqooyinkiisa muhiimka ah. Jirkeenu cuntada markaan cunayna nafaqooyin baan qaadanaa. Nafaqooyinkaas dadka qaar waxaa laga yaabaa inaysan jirkooda si fiican u galin. Cabitaankan wuxuu kaa caawinayaa in nafaqooyinkii oo dhan uu jirkaagu si fiican u qaato oo u nuugo. Dhanka kale wuxuu hagaajiyaa caafimaadka maqaarka iyo inuu dib usoo cusbooneysiiyo unugyada maqaarka. Waxyaabaha waxaa loogu taliyaa in la cabo subaxda hore. Haddii aan si fudud aan idinku tilmaamana, bakeeriga aan shaaha ku cabno oo kale ayaad ku cabi kartaa. Haddii aan u gudubno midka labaad oo Forever Aloe Peaches la dhaho oo oranjada ah. Cabitaankan waa isku darka aloe vera gel iyo mirahan oo peach la dhaho. Mirahani shaftaalina waa loo yaqaanaa, waa miro macaan. Waxay ka dhigaysaa sidoo kale tamar badan buu qofku ka helayaa. Waxyaabaha uu caan ku yahay waxaa ka mid ah kani waa antioxidant badan ayuu leeyahay oo jirkaaga toos ayuu toos uga saaraya dhammaan sunta oo dhan. Jirkaagana wuxuu ka ilaalinayaa gabowga degdega ah. Wuxuu sare u qaadaa caafimaadka maqaarka iyo timaha, iyadana aad buu ugu fiican yahay. Wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka iyo habka dheecaanadeena u shaqeeyaan oo dhan. Wuxuuna taageeraa caafimaadka aragga iyo indhaha, sababtoo ah wuxuu leeyahay beta carotene oo laga helo miraha peach-ka ayuu leeyahay. Kan saddexaad haddaynu u gudubno waa aloe vera berry nectar oo waa kan casaanka ama pinkiga ah. Cabitaankani isaguna wuxuu ka kooban yahay aloe vera gel-kii iyo cranberry iyo tufaax. Cranberry-guna waa miro muhiim u ah ku daaweynta iyo ka hortagga infections-ka kaadi mareenka, oo wuxuu aad ugu fiican yahay keliyaha iyo kaadi mareenka oo dhan. Wuxuu ka hortagaa infections-ka, wuxuu taageeraa xanuunada mindhicirada iyo waxyaabahaas uu aad u yareeyaa, gaar ahaan dadka qaba caabuqyada caloosha. Wuxuu sare u qaadaa tamartaada iyo awooddaada ayuu kor u qaadayaa, isagoo yareynaya daalka iyo niyad jabka. Wuxuu jirka siiyaa antioxidants badan oo sunta uu ka saaraa. Dhanka kale isaga laftirkiisu sida kii hore oo kale waxyaabaha u fiican waxaa ka mid ah gabowga iyo waxyaabahaas uu ka hortagaa. Kan ugu dambeeya Forever Aloe Mango ama jaalaha dahabiga camal ah. Isaguna wuxuu ka kooban yahay aloe vera gel-kii iyo miraha cambada maangaha loo yaqaano, taasoo siinaysa dhadhan macaan aad ka helayso oo la jeclaan karo, oo cabitaankoodu aad u fiican yahay. Waxyaabaha uu leeyahay waxaa ka mid ah oo faa'iidooyinka ah nidaamka dheefshiidka ayuu aad ugu fiican yahay, maadaama cambuhu uu leeyahay fiber badan. Wuxuu jirka siiyaa sidoo kale vitamin A oo muhiim u ah caafimaadka aragga iyo maqaarka. Wuxuu kor u qaadaa isaga laftirkiisu sida kuwii hore oo kale tamarta iyo firfircoonida. Wuxuu caawiyaa xakameynta cadaadiska dhiigga, sababtoo ah cambuhu wuxuu leeyahay potassium. Haddaba productyadan gunti iyo gunaanadkii haddii aan hal mar isbarbar dhigno, aloe vera gel oo ah cabitaanka dacarta ee saafida ah wuxuu nadiifiyaa jirka, sidoo kalena dheefshiidka ayuu hagaajiyaa. Qof walba gaar ahaan dadka caloosha xanuunka iyo gaaska qaba ayuu u fiican yahay. Aloe peaches oo ah shaftaaliga, isaga laftirkiisu wuxuu leeyahay tamarta ayuu aad ugu fiican yahay. Tamar fiican ayaa ka helaysaa, maqaarkaagana aad buu ugu fiican yahay. Dadka
maqaarka raba inay maqaarkoodu caafimaad ama uusan u muuqan gabow ayuu isaguna aad ugu fiican yahay. Antioxidant fiicanna waa leeyahay oo wuxuu ka horsaaraa jirkaaga sunta. Aloe berry nectarna keliyaha, kaadi mareenka iyo dhammaan meelahaas oo dhan ayuu u fiican yahay. Dadka UTI-ga qaba iyo kuwa raba difaacooda jirkooda inay kor u qaadaan aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Aloe mango ama tamarta sare isaguna cabitaankii oo ah cambihii ka kooban, isagoo laftirkiisu tamar sare iyo caafimaadka dheefshiidka iyo meelahaas u fiican yahay. Tamar fiicanna waa kalaysaa. Afartan cabitaan haddaba waa kuwo muhiim u ah caafimaadka guud ee jirka. Waxay ku kala duwan yihiin dhadhanka iyo xagga faa'iidooyinkooda kala duwan ay leeyihiin, taasoo kuu sahlaysa in aad doorato midka kugu habboon ama aad mid walba waqtigeeda aad qaadato, si fiicanna aad u isticmaasho. Haddaba ka faa'iidaysi wacan.